haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamadda gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafiyo lana wadaag saaxiibada haddii aad faalo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi waxaan rabaa warkayga inaan video waxaana mahad weyn u celinayaa madaxweyne xasan sheekh oo aan waqtigii uu madaxweynaha ahaa aan zaid iskula shaqaynay iyo madaxweyne sheekh shariif madaxweyne deni iyo speakerkeenii hore iyo madaxweynihii south west iyo walaalkay saaxiibkay wasiirkii hore iyo madaxweynihii hore galmudug soomaalida waxay dhahdaa islaan uunsan jirin hadday uunsato meel ay ka guban jirin ayay ka gubataa hadda waxaan u malaynayaa soomaaliya dad siyaasiyiin oo awal uunsan jirin ayaa hadda uunsanaya marka meelo badana laga gubanaya annaka haddaan nahay jaaliyadda ama siyaasiyiinta ama bulshada soomaaliyeed ee waddanka Kenya annaka waxaan rabnaa Soomaali oo degan oo nabadgelyo iyo xasilooni oo madaxda Soomaalida meelay jiraan ama siyaasi ahaadaan oo dowlad goboleed ama siyaasiga dowladda federaalka waxaan rabnaa waqti kasta inay u daneeyaan ummadda iyo shacabka Soomaaliya oo tooda iyo tan ummadda hormariyaan annaga waddanka Kenyana taariikh ayaan leenahay oo qof tirtiri karin markii taariikhda la qoro historyga la qoro dowladda Kenya intay u qabatay Soomaaliya ilaa waqtigii burburka waddan u qabtay adduunka ma jiro dadkii qaxootiga soo dhaweeyay annaka ahayn oo maanta ilaa maanta qaxootiga Soomaalida dadka magangeliyay oo gurigoodii labaad waa annaka wadamadan jiiraanka hadda aad garab ordaysiin waqtigaas way jireen laakiin Soomaali ma soo dhaweynin dowladii hore oo markii madaxweyne Moi uu jiray iyo madaxweyne Kibaki dowladii Soomaali dib u soo dhisayeen waxaa lagu dhisay egi laga reebo tii carta waxaa lagu dhisay waddanka Kenya maantana alxamdulillah Soomaalida Kenya iyo Soomaalida ku nool Kenya meel ay ka yimaadeenbo qiimo iyo sharaf ayay ku joogaan waddankaas dowladdan ka muuqanaa baarlamaanka ka muuqanaa maxkamadahan ka muuqanaa jaamacada carruurtana ka muuqaan ganacsigan ku jirnaa marka waxaan rabnaa Soomaali oo mid ah madaxweynayaasha meesha fadhiyaan iyo madaxweyne Deni iyo madaxweyne Ahmed Islaam waxaan idinka baryaynaa
waxaan ka baryaynaa inaad ummadda Soomaalida loo tanaasulo laisku keeno la mideeyo madaxnimada maanta ay jiri berri ma jiri doonto dawladda maanta way jiri berri ma jiri doonto laakiin shacabka iyo waddanka uu jiri doonaa marka anaga maanta waxaan idiin wadnaa message oo reconciliation oo la isku dulqaato siyaasiga wuxuu leeyahay dhib badan buu leeyahay waa guurka oo kale siyaasiga bed of roses mooho waliba waddan hadda soo kacayo oo dhibaatooyin badan soo maray marka waxaa la rabaa experience-kii siduu Sheekh Shariif uu dawladda ku waday in la weydiiyo madaxweyne xasan sheekh in la weydiiyo prime minister hore in la raadiyo oo aqliga la isku keeno oo markaas ay to Soomaaliya hal meel loo jiheeyo annaka nasiib daray noo tahay inay madaxda Soomaaliya iska qabsadaan inay madaxda Soomaalida ay dad kale ay raadsadaan harabna inka dhaxdiina annakana diyaar ahaydinahay odaygaas noo weyn wuxuu jiraa 80 buu jiraa wali madaxweynaha waddanka anaga wala tashada anaga tashada waxaan dabaaldegaynay maalin la yiraahdo Moi Day waxaan sugaynay inaad dabaaldegaa samaysiin xasan sheekh maalintiisa ama sheekh Shariif laakiin waa nasiib darro sheekh Shariif waxa dhadeen boor kama bixi karo marka madaxdii hore waa in la sharfo sheekh Shariif waa in la sharfo sheekh xasan sheekh waa in la sharfo marka Soomaaliya waa in la isku dulqaato ugu dambeyn maamaadii hore waa idin dhibay mid kale idin dhabaaya laba nin baa meel isku raaceen waqtigii salaada markii la gaaray ayuu midna wuxuu noqday imaamkii midna wuxuu noqday kii ku daba tukanay kii imaamka markuu salaadii u xirtay la rabay inuu akhriyo faatixada wuxuu akhriyay ataxiyaat kii daba taagnaa muska amase wuxuu yiri markaad fariisato waxaad akhrin doontaa suubi markaad fariisato waxaad akhrin doonto ee suubi hadda idinka Soomaaliya saan u arko meeshii la rabay inaad faatixada akhrisiin yaa ataxiyaat ka bilowdeen marka tigisku noqda maanta waa idin imaanay madaxweyne annaka dadka waxay isweydiiyaan Kenya interest-keeda wuxuu annaka interest kale ma qabno interest-kana waxa weeyo Soomaali oo nabad oo degan midda labaad interest-kana muxuu yahay Jubaland 800 kilomitir oo xuduudan la leenahay annaka Jubaland waxa qasab ay nagu tahay national security interest-ka waddanka annaka wuxuu ku xiran yahay Jubaland aniga nila hadlayo degmada liga soo doortay 143 arday oo jaamacad ayaa hal maalin lagu dilay ciidamadannada maalin kasta meeshan joogaan ku dhamaadaan ayagoo ummadda Soomaalida ilaalin ayagoo ummadda Kenya ilaalin waxay maanta Jubaland ay tagta nabad ay hesho Soomaaliya ay nabad noqoto annaka 1 minute ma sii joogayno Jubaland ciidamada Kenyana fartaya lagu fiiqin ciidamada Kenya waxay ku joogaan Soomaaliya magaca AMISOM
ciidamada Kenya waa sidii ciidamada Ethiopia waa sidii ciidamada Burundi waa sidii ciidamada Djibouti marka anaga xogaa discrimination lagu sameeynina magaalada Kismaayo oo qiimaha leh ciidamada Kenya ay idin qabteen markuu Mzee Xaaji uu ahaa wasiirka difaaca marka walaalayaal nabad baa idin keenay waxaan rabnaa dawladda Jubbaland dawladda Puntland dawladda Galmudug South West all the region in lisku imaado iyo dawladda madaxweyne Farmaajo uu hogaaminayo aan midnimo muujisiin inkoo mid ah ayay Soomaalida Kenya idinku faanaysaa inkoo mid ah ayay Soomaalida Djibouti idinku faani marka nimayo waa nagu noqonina islaantii uusan jirin oo uu satay oo meelo badan ka gubatay aan nagu noqonina marka soo dhawaada waxaan ugu dambeyn aan apology ka wadaa governorka Wajeer governorka Garis iyo governorka Mandera oo dibadda ku maqan waxaan mahad weyn u celinayaa deputy speakerka baarlamaanka Senate-ka Soomaaliya walaalkay Abshir Ahmed oo asagana meeshan joogo waxaan leenahay Jubbaland ha noolaato Soomaaliya ha noolaato dawlad goboleedka meelay jiraan Soomaaliya ha noolaadaan madaxweyne islaam waxaan leenahay ilaahay ha ku xifdiyo 4 sano oo soo socotana dawladda Kenya way kula shaqeyn iyo dawladaha IGAD. Assalamu alaykum.